murashax xildhibaan Barkhad Maxamuud Geedi oo kamid ah murashaxiinta u tartamaya golaha deegaanka degmada Ceeri Gaabo doorashooyinka fooda inagu soo haya ayaa ka qayb galay munaasabad ballaaran oo xisbiga wadani maanta ku soo bandhigayay murashaxiintiisa uga tartami doona golayaasha deegaanka iyo wakiilada gobolka Sanaag oo isaguna qayb ka ahaa waxaana murashax xildhibaan Barkhad Maxamuud Geedi oo taageerayaashiisa munaasabadaasi si ballaaran uga dhex muuqdeen halkaasi ka cadeeyay inuu yahay murashax u taagan golaha deegaanka degmada Ceeri Gaabo doorashooyinkan fooda inagu soo haya isagoo sida oo kalena xusay sida ugu rajo weyn yahay in dadweynaha reer Ceeri Gaabo cod ka siin doonaan anigu waxaan ahay musharax u tartamaya golaha deegaanka ee degmada Ceeri Gaabo isla markaasina ka tartamaya xusbiga rajada shacabka ee wadani waxaan leeyahay taageerayaashayada aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa soo buux dhaafinta badashana soo buux dhaafiseen waanu idinku mahadcelinaynaa dhiirigelinta iyo garab istaagga aan tusteen haddaan nahay musharaxiinta qodobka labaad waxaan ka hadlayaa waa baaqaan ugu baaqayo dhammaan guud ahaan shacabka degmada Ceeri Gaabo oo aan leeyahay war shacabow maanta waa maalintiinnii waxaa laydinka baahan yahay inaad doorataan nin idinla fahansan danta gobolka danta degmada iyo baahiyaha asaasiga ee ka jira gobolka maanta annagu noqon mayno haddii aadna doorataan kuwa idin yidhaahda fartiinna eedeene waxaa ahaanaysaan kuwa fartiinna mahadiya waxaanu wax kaga beddeli doonnaa qorshadayaashayada haddii alla idmo degmada Ceeri Gaabo iyo guud ahaan gobolka Sanaag waxaanu idin leenahay reer Ceeri Gaabo inaan barri idiin rari doonin inaan idiin furi doonin yaanu idiin rarin codkiina waxa la hubsataan musharaxiin idin og halka ay xaaladdiinnu tahay iyo sida arrinkiinnu yahay waxna idin kala qaban karaa horumarka iyo isbartaaggiinna aad iyo aad baa u mahadsantihiin wassalaamu calaykum